maalin maalmaha ka mid ah shaydaan ayaa duufsaday Xaawo. waxay soo goosatay midtii wayna cuntay xataa waxay wax ka siisay ninkeeda oo iyada la jiray asagana uu cunay mirtii. aadan iyo Xaawo ficilkoodii xishood darada ahaa ee adeeci darada wuxuu burburiyay nabad ku wada noolaanshihii beerta iyo nabadii ka dhaxaysay ninka iyo naagta tii iyaga iyo Ilaahayba. ninka waxaa lagu saliday nolol dhib badan oo shaqo adag ah. naagtana waxaa loo kordhiyay ku adkaanta dhalista iyo inuu xukumo ninkeedu. laakiin Ilaah wuxuu u ballan qaaday maalin maalmaha ka mid ah in naagta farceedu uu burburin doono shaydaanka madaxiisa oo iska soo dhigay abeeso.